السلام عليكم. magacayga waxa waaye Cabdiqaadir. waxaan ahay wiilkii xiran aabihiisa Cabdifataax anaa dhalay. gabadha oo social media Snapchat-ka idinku soo share gareysay anaa dhalay. wiilka walaalkeeda arrintiisay ku jirtaa. wiilkeyga waxaa loo haystaa 3 qof oo Mexican oo dhimatay oo gaari shil ku dhintay. markii social media oo GoFundMe noola sameeyey waxay nagu sameeyeen dadkii Mexicaanka wayna dacweeyeen. wiilkeyga waa laga xiray meeshii oo lacagta lagu aruurinayay. aniga hadda waxaan joogaa Minneapolis. waxaana Minneapolis u imid qabiil uma imaanin, waxaan u imid Soomaali weyn. wiilkeyga maanta arrintiisa waxaa wax ka qaban karo Soomaali weyn. sida gabadheeda ay sheegayso waa run. aniga aabihiisa wiilka waxaan idinka codsanayaa inaad maanta nagu caawisaan Soomaalinimo, aadan nagu caawin qabiil. wiilkeyga wuxuu u baahan yahay garab, wuxuu idinkaga baahan yahay walaalnimo, wuxuu idinkaga baahan yahay islaamnimo. waa wiil yaroo high school hadda dhameeyey oo jaamacad u socdo. wiilkeyga daroogistana ma aha, waa nin sharaf lahoo dadka dhan magaalada yaqaaniin, khatartana waa iska qorneed. waxaan idinka codsanayaa inaad na caawisaan oo sida islaamnimaha Soomaalinimaha aad nagu caawisaan, maadaama uu wiilkan wiil Soomaali yahay. dad qof walba qofkiisa ay istaago. maanta waxaan idinka codsanaynaa garab waa adduunyo. berito qof kale ay qabsan kartaa. waana mahadsantihiin. social media aad noo share garayseenna waa ku mahadsantihiin. insha allah ilaahayna waxaan ka rajeynayaa qof walba oo arrintaas wax ka qabtay ama share gareeyey ama isku dayay inuu na caawiyo inuu ilaahay khayr siiyo. waana mahadsantihiin.